Salaamu calaykum. Waxaad nagala socotaan sheeko show barta laga hela kaydka sheekooyin xikmado ku dheehan. Sheekada maanta waa sheeko hubaal aad ugu riyaaqi doontid. Saanayna ku bilaabanaysaa. Hadda ka hor maalin maalmaha ka mid ah, waxaa jiri jiray wiil dhalinyaro ah iskuna shuqliyo inuu cilmiga diiniga barto. Ilaah ka cabsigana aad ugu weynaay, wuxuuna ahaa faqiir. Maalin maalmaha ka mid ah baa gaajo si xun u qabatay. Kadibna banaanku u soo baxay si uu wax u cuno u helo. Wuxuu soo socdaba, wuxuu soo dhaxgalay beer weyn oo ay ka baxayeen geedo tufaax. Laan u dhoweyd buu intuu eegay is yiri, nafta yay gaajo kaaga bixine, xabba tufaaxa jaf soo siiso. Qof kuma jeedo beerta intaan weynin la eg. Xabba tufaax oo la aad ka qaadato, waxna uga nusqaami maayaan. Markiiba tufaaxuu soo goostay inta meel geesa fadhiistay buu jamta ka suray. Xoogaa gaajada markii ka degtay, asoo gurigiisa u sii socdo baa naftiisa hadal ku bilowday iyo eed asoo isleh maxaa kuu geeyay beerin islaameed leeyahay uguna cuntay furuud adoo xataa qalka fasax qaadanin ama lagu ogolaanin. Isla hadalkii baa ku dheeraaday, habeenkii hurdo way ka soo dhici weysay ninkii asiga ahaa. Intuu dharkiisa soo gashtay buu raadshay ninkii beerta lahaa si uu cafis u weydiisto. Waa loo soo tilmaamay gurigiisuuna yimid. Salaan kadib wiilkii baa warka bilaabay oo yiri, adeerow gaajo baa saa'id ii qabatay anoo waxaa cuno raadsanayaan beertaada soo galay xabba tufaaxaana kaa cunay fasax la'aan waana ka jiifan waaye. Haatanna waxaan kuugu imid inaan cafis ku weydiisto. Milkiilihii beerta baa yiri, kuma aanan cafin ilaa maalinta qiyaamo. Ilaah baa noo kala gar qaadi doono. Wiilkii dhalinyarada ahaa intuu isku naxay baa ilmo indhihiisa soo buuxisay wuxuuna ku yiri milkiilihii beerta, adeer waxaan diyaar u ahay waxa ii dirtay inaan kuu suubsho oo ka shaqeeya beerta xataa hadaad doonto lacag la'aan, laakiin i cafi fadlan. Odaygii baa diiday dalabkii wiilkii kana soo dhaqaaqay. Wiilkii baa odaygii soo daba raacay ilaa uu gurigiisa ka galay. Yarkii wuxuu iska hor fadhiistay gurigii ninkii beerta lahaa asoo isleh salaada casir markuu soo baxo bal la hadal mar kale waa intaasoo kaa aqbalaahe. Xoogaa markuu sugayay waxaa la addimay salaadii casir. Milkiilihii beerta baa gurigiisa ka soo baxay wuxuuna arkay yarkii oo ilaa maanta weli meesha u taagan. Asoo murugaysan buu mar labaad ka codsaday inuu iska cafiyo ama uu ku shaqaysto. Ninkii beerta lahaa baa yiri, waan ku cafinayaa laakiin hal shardi. Wiilkii oo farxad ka muuqata baa yiri, ii sheeg shardigaada waan ogolahay. Ninkii beerta lahaa baa yiri, shardigayga waa inaad gabartayda guursataa. Guursataa? Yarkii intuu yaabay buu isku qasmay. Ma farxaa mase waa naxaa? Odaygii baa warkiisa sii wato yiri, wiilow, laakiin ogow gabadhayda waa dhagool, indhool, mana hadasho waa najiis. Baryahana waxa u raadinaya wiil fiican oo ku aamini karo, kuna qaadanayo sifooyinkan hore kuugu soo sheegay. Haddaa shardigayga aqbasho waan ku cafinayaa. Wiilkii dhalinyarada ahaa ee tufaaxa aan loo fasixin cunay markaan buu si rumay iskugu naxay wuxuuna bilaabay inuu isla hadlo. Wuxuu naftiisa isku dhahay, ma dembi aan dhabar ka saartaa ilaa maalinta qiyaamo, mase mustaqbalkayga dhan aan saan ku burburiyaa. Ileen waxaa ahay nin hadda nolosha u cusub tahay, laguna xiray shardi inuu gabar intaanu aafo qabta nolosha la qaybsado. Asoo isla hadalkiisa sii wato buu isweydiiyey, gabadha intaanu aafo iskugu darsan tahay sidee reer igula dhaqaysaa oo ilmo iigu tarbiyeyne? Waa yaab iyo amakaag. Yarkiisuu u xisaabtamayay keligiis. Xisaabtii markay iskeeni weysay buu hal isku qanciyey inuu Ilaahay u qadaray, haddana uu waxna ka bedeli karin. Naftiisuu faray inuu iska sabro, waxaan waa adduunyo. Intuu Ilaah aakhire igu ciqaabi lahaa waxaan xaaraan ku cunay, shardigan inaa aqbala ii fiican. Saas buu naftiisa ku yiri. Yarkii tufaaxa fasax la'aanta cunay baa ninkii beerta lahaa ku yiri, adeer waan soo fakaray. Haddaan nagu cusub tahay subscribe dheh, like videogan, lana share garay asxaabtaada. Mahadsanid, aan sii wadna sheekadeena. Go'aan waxaan ku soo gaaray inaan diyaar u ahay aqbalka halkaada shardi. Waana ogolahay inaan inantaada guursado. Ilaahana khayr ka rajaynaa. Ninkii beerta lahaa baa yiri, way dhammaatay sheekada. Isku keen maalinta Khamiista ah. Arooskiina gurigayga buu ka dhacayaa. Anaana dhiibayo dhammaan qarashka guurka.
xataa meherka anaa kaa bixinayo fiicana. Waqtigii la qabtay markii la gaaray buu wiilkii dhallinyarada ahaa intuu isdiyaarshuu soo baxay asoo niyadda aad uga jabsan tahay una muuqan wiil aroos ee buu albaabkii reerkii carruusadiisa gargaraacay. Waxaa soo dhoweeyey aabaheed, waxaa bilowday xafladdii nikaaxa, waa loo duceeyey loona tahniyey yarkii. Gabagabadii markay dhammaatay xafladdii baa ninkii gabadha dhalay wuxuu soo waday wiilkii una tilmaamay qolkii ay ku jirtay gabadha loogu soo nikaaxshay. Asoo lugjiid ah murugana ka muuqato wejigiisa buu albaabkii gabadha ku jirtay u gargaraacay yarkii. Intuu keligiis isla hadlay buu yiri, gargaraacdid albaabka maba xumee, dhagoolse ku maqlehe. Isla markiiba wuxuu maqlay qof ka dhex hadlayo qolka dhexdiisa yirina, soo gal. Asoo yaaban intuu galu yiri, boqol qaladaa soo galay, ani gabaraa hadli karin oo dhagoolo baan u socday. Gabadhii baa ku tiri, waa aniga gabadha xaaskaada ah. Kor buu u fiirshay, mase waaba bil 14aad, gabar aad u kala kacsan. Markaabuu asoo ama kaagsan ku yiri, laakiin aabbaha wuxuu ii sheegay inaad tahay dhagool, indhool iyo weliba xataa jiis. Waxaa la ii sheegay inaadan hadli karin xataa. Waxay tiri, waa runtiis aabbahay, aniga waxaan ka indhala ahay oo ka dhagala ahay xaaraanta. Jiis waxaan ka ahay meel xun inaan lugahayga ku aado, mana ku hadlo waxaan xaq ahayn, maadaama aan aabbahay u ahaa qofka keliya oo awlaad ka haysto. Markasta wuxuu ii raadi jiray nin wanaagsan. Markuu ku arkay aabbahay saa xaaraanta iskaga ilaalinayso, wuxuu kula jeclaystay inaa u noqoto wiilka oo gabadhiisa mas'uuliyaddeeda ku wareejin doono. Haddaba dhegaystayaal, su'aasha meesha taalla waxay tahay, ma qiyaasi kartaa gabadhan iyo wiilka markay isguursadeen? Cunuga ay dhaleen wuxuu Ilaahay ku arsaaqay walad saalax ah. Waxay dhaleen shiiqa weynka ee madhabka caanka leh, Imaam Abu Xaniifa. Haddaan nagu cusub tahay, subscribe dheh, like videogan, lana share garee asxaabtaada. Mahadsanid.